adagan ku shaqeynayay wuxuu ka dhaxlay dowladdii hore oo ku shaqeynayay asay ka horeysay TFG ahayd waxyaalaha waaweyn oo lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa in uu maamul goboleedyadan hadda jiro oo dhan marka laga reebo Puntland oo ka horeysay oo dhidibada u aasay ma la oran karinin halka cadaalad uma la sameeyay waxa weeye dowladda Xasan iyo dhowrka ra'iisul wasaare isbarbar yaacayeen waxa weeye Hirshabeellahan ka soo qaadno khasab ayay ku timid way Xasan wuxuu rabay runta hadii la isku sheegi waayo roob di'i maayo waxa weeyaan doorashada darteed si uu helo dad isaga u codeeyo inuu ka soo saaro Jowhar iyo beledweyn ayaa qabqabta loo geeyay farsamo lama samayn jid lama marin marka xaraan ayay ahayd abuurkeedu sidii loo hadii xataa gobol labada gobol la iskaga keenayo waxay ahayd in farsamo leh oo edeb leh oo muddadeeda la siiyo maxaa loo sameyn waayay saddexdii sanadood ka horeeyay ee lixdii bilood ee ugu dambeeyay loo boobsiyo walaal marka waxaad aragtaa dan gaar in laga lahaa tan South West waxaad ka soo qaadaa xataa habka loo dhigay xadadka ka soo qaada waxaan anigu joogay muddo 2 sanadood horteeda ayaa laba ciidan baa iskaga hor imanaya Jazeera ee Muqdisho koonfurteeda koonfur galbeed oo la annakaale iyo banaadir oo la annakaale labadiba isku rasaasaynaya waaxad baa la dhiganaya marka haday dawladda Xasan Sheekh iyo kuwa la caana maale gobolka joogay haday dan ka leeyihiin horta dhulka ciidamada lama keeneen ilaan wali xadadkii lama wadhigin oo hataa waxa jira gudi loo saaray in xadadka ka soo taliyaan lama dhigin marka Xasan wuxuu ku dadaalayay arinta Jubbaland waxa ku qabsatay arin adag bay ku noqotay oo inta uu meel tagay ayuu yiri banaadir iyo maxay ahayd beledweyniyana ha socdaan kismaayana ma soconayso marka dadka waxa loo qaato waad garanaysaa tafaasiirtii Soomaalida la oranayo war ninku hawiyahana waxba u dhisaya daaroodkii iyo dadkii kale la caana maale gobolka deganaana waxba dib looga qabanaya ayaa hoosta xurgufta marka in tan la iska aamusiyo ayay noqotay laakiin se wax iimaan iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo iyo yadab ku dhisan midnaba ma ahayn walaal dhinaca kale ka eeg inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud uusan la joogin hadda hadaysan dhisnaan lahayn maamul goboleedyada hadda jira iyo inay dhisnaadaan oo meesha hadda ay marayaan ay maraan keeba kula haboon adiga waxa weeye su'aashu taama waxa weeyaan kuwa sidan iyo sidan hay imika u dhisan yihiin iyo la'aantoodun maaha fursadaha aynu haysanaa waxa weeyaan maalan inta la dhaho 18 gobol ayuu siyaad barre ka tagay ya 18kii haddaad imika aragtid gobolka Puntland imisa gobol ayaa ka sii samaysmay Puntland halkay 2 gobol ka ahaan jirtay markii siyaad barre joogay imika waa 9 waaye waqooyi halkay ka ahaan jirtay 5 ya waxay marayaan 14 bay marayaan marka mid walba koro ayaa ka hoos kacasa waxana wada waxa weeyaan annagu hadaan reer hebel nahay qabqablayaasha reer hebel ma dadka masaakiinta qabqablayaasha meel annaguna waxaan ku qaraabano waa inaanu helnaa marka ma aha fursad aynu haysanaa ma aha kuwan iyo la'aantoodun ma aha siyaabo kale ayaa loo keeni lahaa farsamo kale oo hadii dad iimaan leh oo aan siyaasiin ahayn loo diro oo la yiraahdo bal ka soo taliyo goboladaas oo dhan ka wada yimid 18 waxaan qabaa in wax dhaama la heli lahaa laakiin se fursad lama siina kuwa siyaasiyiinta xamar degan ee madaxda sheeganayay ayaa doonay waxaan inay ku qaraabtaan taas ayaana keentay walaal goboladahan ka hadlano hagaag waxaan jeclaynaa hoos ka xariiqo anoo professorku mahad celinayay ra'yigiisaba in gacan ramis lagu dhaliyo Hirshabeelle ama soo xaraan ku yimid TV Universal ma xaqiijin karo laakiin professorka ra'yigiisa waa u deynayna xaq wada u leeyahay idinkuna kiina xaq waa u leeyihiin hagaag professor haddii aan arintaas halkaas uga gudubno telefono badan way ku sugayaan dhawaan waxaa ka dhacday degmo yara ama tuulo yar oo la yiraahdo Bariire in dad Soomaaliyeed askar Soomaaliyeed iyo ciidamo Mareykan ah waa si hadalka loo dhigay ay ku laayeen shicib Soomaaliyeed oo caruur ay ka mid tahay nasiib darro dabadeedna dawladda Soomaaliya ee dhexe wasiirro ka tirsan iyo saraakiil sarsare ayaa markiiba social media la aaday inay warar kala duwan oo iskhilaafsan ay ummadda u sheegaan sidee u aragtaa inay dawladdu 10 qof 5 qof 3 qof 4 qof oo xilal waaweyn oo haya kamid yahay wasiirka warfaafinta kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo qolyaha difaaca ay kamid yihiin ay hadallo kala duwan oo iskhilaafsan ay ummadda u sheegaan oo isdhexyaacaya sidee u aragtaa sidee looga hortagi karaa waxa sokonaysa dib u soo noqon markaad
dhinacaaga adigoo aqoontaada aragtidaada ka eegtid walaal cabdulxaafid arrinta ah hirshabeelle in gacankurimis mid aan gacankurimis lagu samayn ma ayan jiro xataa puntland marka dib ugu noqoto arrintii cabdilaahi yuusuf iyo maxamed abshir muuse iyo ay isku qabsan jireen ay arrintaas ahayd marka gooni ahaan uma saari karno hirshabeelle waa tii laysku hayey ma 6 gobol bay noqonaysaa koonfur galbeed mise 3 gobol bay noqonaysaa jubbaland wixii ka socday waan garanaynaa mid jid islaamnimo iyo soomaalinimo iyo xalaalnimo ku soo baxday ma jirto taasi marka taa halkaan dhigno arrintan bariira ka dhacday waa arrin naxdin leh wararkuna way istarayaan oo qaar baa kooranaya waxbaa ka jira maraykanku hore ugu sheegay dowladda soomaalida inay halkaasi waxaasi joogaan iyaguna ummadda umay sheegin taasi dee dowladda iyo maraykanka ka dhexaysa mana ogin inaku laakiinse haddii dad soomaaliyeed oo weliba dumar iyo caruurihii ku dhinteen waa jariimo waaye maana markii ugu horreysay jariimo caynkaasi waddanka ka dhacday ama meelayooga lagula dagaalamayo qolooyinka argagixisada lagu sheego maaha markii ugu horreysay waxaa jira buug la dhaho c i a da laga qoray oo xataa nin maraykan intuu muqdisho tegay oo murahan oo dhan soo eegay ya oo dirty war la dhaho dagaalka wasakhda ah markaa dadkii ugu horreysay maaha dee waxaa ka mid ahaa dadkii la garaacayay axmed madoobe waa kii ku dhaawacmayey markii maxaakiimta la garaacayay kismaayo garabkeega markaas waxay ila tahay taasi waa in laba guro oo ciddii dembigaa ka dambeysay waa in lasoo helo maraykanku hadduu isagu de markaa wax aan jirin abuuray si dad loo laayana waa in isagana lala xisaabtamaa soo maad garan haddii hay jiraanna dee ha la soo caddeeyo si xalaala ummadda ha loogu soo bandhigo tan wasiirro kala hadlaya horta waxaa la yidhaahaa dowladdu waa inay waxaa qabataa waa inay waxaa qabataa markaad wasaaradaha tagtid cabdilxaafido walaal waxaad arkaysaa wasiir baa jira wasiir ku-xigeen baa jira wasiiru dawlaa jira dee waxaa jira agaasimo guud iyo wax baa jira wax farsamo hoos yaalla intooda badan ma jiro waayo abadan markaa dowladda waxaa awoodda siiya waxa weeyaan institutionka ama arkaanta bureaucracyga la dhaho weeye bureaucracy kuu dhisan ama ha noqoto xafiiska madaxweynaha ama ka wasiirka amuuraha dibadda ama ka ra-iisul wasaaraha awood dhisan walaal ma jirto xasan sheekhna may dhisnayn maantana ma dhisna marka haddii la doonayo inay wax qabato waa inta horta arkaanta la dhisaa taasi waa ta koobaad weeye laakiinse waxaa nasiib darra ah iyo foolxumo qaawan ah in wasiiradu mid walba isleeyahay facebook iyo twitterka ka gaadhsii magacaagu ha soo baxe midku doonaya ha noqdo waxa weeyaan in dowladda dhexe yeelato xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu meel u dhaxaysa ha yeelato oo wararkaasoo dhan inta lagu soo shubo inta la hufo dabadeedna dowladdii oo ka baaraan degtay la sii daayo laakiinse qolooyinkan twitterka iyo facebook iyo soo gashanaya de waxa weeyaan wasiirra maahee dib suuqa ha ugu noqdaan baanu leenahay annaku waa hagaag waxaan ognahay dowladdan hadda soomaaliya inta yar ay jirtay ra-iisul wasaare kheyre dowladdiisa waxyaalaha ay ku dadaashay waxaa ka mid ah markaad shicibka muqdisho la sheekeysatid ama wararka laga soo dirayo barnaamijyada laga sameeya aragtid in muqdisho ay soo roonaanayso xagga amnigeeda oo hubkii lala dhexyaacayay iyo waxaa la joojiyey maxaad kaloo isleedahay dowladdu way u baahan tahay inay qabato ciidan weyn inta laga dhisayo iftiinkaa yar iyo caasimadda qaranka soomaaliya muraayaddii ummaddu iska eegeysa yahay inay meeshay maanta joogto kasii ficnaato la gudbo dowladda soomaaliya horta waa su-aal adag baaraandeg gaarana u baahan weeye bishii han xamar joogay laba wax baad arkaysay waxaad arkaysay dadku waa soomaalidu waa abudacaaye waayo waad garanaysaa waxbay arki hadday soomaalidu wax number 1 ku yihiin ya waxa weeyaan curista iyo hadalka kolkaaba ku dhaji way markaa dowladda cusub waxay u bixiyeen Republic of Maka Mukarrama jumhuuriyadda Maka Mukarrama maaha jumhuuriyadda Soomaaliya ma dadka dacaydeynaya anigoo dad la socda la ii sheegay markaasaan ku yidhi maxaad uga jeedaa waxa looga jeedaa waxa weeye iyagoo halkan bay maraan Maka Mukarramay maraan meelaha kale ma maraan meeshaasi awal may jiri jirin jidadka kuwan waxaan lagu gooyo fara badan may jiri jirin kuwan ibtilada reer calad madoobana halkaasay soo abaaraan oo beegsadaan meelaygoo qarxiyaan 90% waa halkaa weeyaan marka labadoodiiba meeshii isugu yimaadeen marka meeshii dawladdu ka shaqaysaabay dadku ku leeyihiin markay leeyihiin Republic of Maka Mukarrama waa meesha la isku haysto waayo
laakiinse waxaad arkaysaa ciidamo dadaalaya oon mushahaar waxoogaa waa la siiyaa wax ku filan se lama siiyo qolooyinka baarlamaanka $3,000 baa la siiya anigu waxaan odhan lahaa mid walba 1,000 ha laga gooyo ya 1,000 kolkaad ku dhufatid 300 qof waxa 300,000 waaye ya lacag badan baa askarta ku soo baxaysa oo markaa askariga ugu liito waa in $200 la siiya soo maad garan haddaad maalan jidadka dhaaftid kan warshadaha iyo kan soddonka iyo xagga haddaad dhaaftidna cid kalaa xukumata waan soo maray dhulkaasi cid kale ayaa xukumata laakiinse dawladdu way dadaalaysaa waa run oo waxa weeyaan hubkii badnaa lala dhex mari jiray waa laga qaaday dawladduna doodeedu waxay tahay in bahalahan la dhisay iyo jidadkan la xidhxidhay dadka mudaaharaad ka dhigeen dadkan bahashan yar wataa mootada wataa dhugdhugleyda wataa waxay ka cabaadayaan jidadkii aanu quruska ka qaadanaa lanaga xidhay dawladdiina waxay leedahay dhulkan waa dhulka lasoo marayo ee jidkan lagu qarxinayo ummadda lagu leynayo marka labaduba waxay leeyihiin xaq bay leeyihiin marka istixgelin waxa weeyaan sidii markaa dadkana quruskooga hay usoo heli lahaayeen dawladduna hay uga hortegi lahayd laakiinse siday dawladdu uga adkaanaysaa qolooyinkan reer calal madoobe reer calal madoobe waxaan oola jeedaa al-shabaab hade calanka alla madoob yahay moogtahay anu waxaan moodi jiray calanka dadku walaal qoys cusub oo soo baxay oo inta la qabsado waxa weeye calanka muslimka waxaan moodi jiray calan cagaaran inuu yahay kan madoobe wuu nagu cusubay markaa reer calal madoobaan anigu bixiyey waxa weeye sida qura ah runtii looga adkaan karay xamarna loo sugi karaa inta la sugayo ciidan soomaaliyeed inay yimaado in degmo kastaba 5 block 5 sekadood loo gooyo sida loogu goonaya waxa weeyaan intii jaara iyaga is wada garanaya in intaasi la isku xidho aaminaadooda la dhiso la maalgeliyo Ethiopia sida uga adkaatay waayo waagii hore kuwii ku kacsanaa Cuba waa sida uga adkaatay Vietnam waa sida uga adkaatay Mozambique waa sida uga adkaatay shicibku inay noqdaan dhagihii dawladda iyo muruqii dawladda inay noqdaan inta ciidan la helayo laakiinse inta Facebook la iska daawanayo saaxiibaday Facebook ama kuwa wasiirada noqday ama kuwa madaxweynayaasha dhamaantood wada saaxiibaan ahaan jiray inta iska daawanayaan sheekadu ma dhaw wahagaag bal khadka telefoonada aan dib ugu noqono raalli hada daawadayaal mar labaad ku soo dhawaada waraysiga gaarka oo professor Cabdi Ismaaciil Samatar aan la yeelanayo studio dhexe TV-ga Universal waan idin mahadcelinaa meel kasta nagala socotaan qofka ku xiga halo walaal soo dhawow magaca السلام عليكم والبي مغليشة سي waxaan ba ku maqlaa soo dhawo magaca والله maxamed xisbi la yiraahdaa loo baan ka hadlayaa waxaan mawduuca waxaan ka maxamed bari wala maxamed xisbi la yiraahdaa soo dhawo maxamed والله ma santahay adiga professorka waan salaamaya waxaan rabaa inaan mawduuc badan baa laga hadlay laakiin ninkii Soomaaliga ahaa oo dawladdu la sheegay dawladdu inuu dhiibtay Ethiopia ninkaas rabay inaan kelmad oo contribution ka geysto walaalow aniguna waa weydiiyey mahadna wuu weydiiyey timesaan uga faa'iidaysano fadlan su-aal kale weydiiyey maxaa yeelay ujeedadeedu maaha inaan ninkaas doonaynin in laga hadlo ma ahan su-aasha annagaa weydiinay TV-ga Universal haddaan nahay xaq baan u leenahay inaan weydiino mujtamaca Soomaaliyeed baa doonaya inay ogaadaan annagu dadka Soomaalida baan u shaqeynaa laakiin waxaan rabaa wax laga faa'iidaystay inaanu maaragtay u bedelno arrintaas meel baan saarnay marka fadlan ka gudo mid kala weydii walaalow ma su'aal ma weydiinayo professorka su'aal ma weydiinayo contribution ma koro contribution soo dhawo way contribution wuxuu yahay contribution Soomaaliya dastuurkii u horeeyay oo Soomaaliya 60kii waxa ku qornaa qof kasta oo Soomaaliya aabihi hooyada Soomaaliya yahay oo markaas ay to haduu yahay Soomaalida Ethiopia haysato Soomaalida Djibouti markaas ay wali dawlad qaadan midda dawladda Kenya oo maartay NFD iyo Soomaaliya oo inuu qofkaasi Soomaali yahay caasimada Soomaaliya markuu yimaadana waxa loo dhaqmayo qof Soomaaliya oo isla markiiba ID-giisa iyo aqoonsigiisa hore laga siinay waxa jira marka haduu sidaa tahay wali haddan la joogo in waxa jira sharciga adduunka waxa jira waxa la yiraahdo isdhaafsiga maxaabiista la yiraahdo ama isdhaafsiga dambiilayaasha la yiraahdo isdhaafsiga dambiilayaasha waa in labada dawladood heshiis ay ku leeyihiin oo heshiiskaas in dambiilayaasha la isdhaafsado ay tahay waxa madaas ka maqan qofku markuu siyaasi yahay siyaasadda kuma jiraan adduunka oo dhan waxa la yiraahdo qofka hadduu siyaasad yahay kuma jiro dambiilayaasha la isu celiyo waayo siyaasigaas haddii waddankiisa loo celiyo dhibaato xun ayuu la kulmi karaa sida aawadeed madaxweynuhu maalmood wuxuu yiri ninka celin mayno
haddana maalin ka bacdi ninkii waa la cegiyey aniga waxaan qabaa taasi inay tahay bahdil ay soomaalidu lafteeda isku samaysay intaan cid kale ku samayn taasina maaragtay waa mahadsan tahay maxamed xirse waa mahadsan tahay waqti badan baan ku siiyey waa bointiga anu wacadiya mahadsan tahay thank you waa hagaag qof kale oo su-aal qaba anu gudubna haddii ilaahay yidhaahdo soo dhawow qof ku xiga halo soo dhawow t v-ga iska baktiya walaal magacaha magacayga zakariya waaye South Africa joogo waa kusoo dhaweynaya zakariya meel fog baa kasoo wacsamaysaa horey u gudagal su-aashaa qabtid waa ku salaamaya cabdixafiid professorkan waa salaamaya 114 ku salaamaya quraanka waana professorka keliya ee Soomaalida ee xalaal miiradka ee maanta nool ee dunida ku nool waana professorka keliya maanta idaacad soo istaago ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed qanci karayo marka professorka waan salaamaya su-aasha weydiinaya professorka waxay tahay asagoo aad u mahadsan dhibaatada wadanka ka sheegaysa professor haddii aanan professorka adigoo kala ah wax soo barto dalka wax ku soo bartay dalka cashuurtiisa wax ku soo bartay حديثا ما أنت أمضى أي سندك كقبل كريان كقبل مجاهل كمان أنت بربرنا ما إنه في صار إنسان حداتين بروسورة وحصابرتي بس ده وحكلا إنه هي سان حدي عليه وحكي قبو يسمى يا وحكي قبناي شال بروسور كله ده شال اسماعيل فمطر وحول أهلنا عقوي قلبت هو ده هاي أنا هدي أنا عقوي بلد صومالي ومع سلامين بينما مساس زكريا وكان حق هالكاس بروفيسور أحمد إسماعيل سمنتر وقويان صوماليات سيد عبدي وكلا حرب وياهي إنه أصله ماشوا الدورة وآذو ما دام وسنة جوجن مرة وإن عبدنا سؤاشاس وكلا ويديسين أصله أو مقالنا أتلا هذه وقوم بوليها لكن وحويها وهالكاس وآذي دوخي سو هالكا كعياري أصله إمارة دنتي سوي هالكا كسيان بغاد هوريسو صور كاسي ما أنتوا أسوأ نوليها لكن waxaan ka wadaa professorka maanta uu noolyahay inuu Soomaali wax kama qaban karin ama mos uu ka qaban karaa taal su'aashaas la weydiin karaa professor ma oo ogahay professor kaliya xalaal meerdo inuu jiro maanta professor ka sareeyo inuu jiro aad u mahadsantahay Zakariya aad u mahadsantahay waxaan ka balan qaadayaa su'aasha aan ku soo gabagabeyn doono su'aashaas oo waji kala laakiin macnuhu isku mid yahay inaan weydiiyo waana kaaga mahadcelinayaa qayb qaadashada Zakariya from South Africa thank you waxa qof kale fursad aan siinaa hello soo dhawow waay magaca liban bayda liban soo dhawow xagee joogtaa caaw waxaan joogaa Birmingham walaal soo dhawow maxaa jeceshahay professorkana weydiisid waxaan rabaa inaan weydiiyo khadkan ku jira oo ku maqlaa si fiican ku maqlaa liban waa mahadsantiin professorka horta marka ugu horeyso waan salaamayaa waana u mahadinayaa wuxuuna ka mid yahay sida uu sheegay Zakariya ninkii ugu horeeyay wuxuu ka mid yahay haldoorka Soomaaliyeed runtii waqti badan ku bixiyay in uu fikir xalaal ah oo sax ah ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigo waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood su'aasha ugu horeyso aan rabaa inaan weydiiyo waxa weeyaan arrintii qadar uu ka hadlay waxaan rabaa inaan ka weydiiyo sida uu professorka la socdo siyaasadda sideedaba waxa weeyaan waa masaalix mutabaadala weeyaan ummadda Soomaaliyeed waa sax wixii ay dawladda u go'aamiso waa in ay qaataan weeyaan laakiin dawladda waxaa la rabaa in ay masaalixda iyo mafaasida fiiriso Soomaali badan ayaa waxay ku tiirsan tahay dawladaha hadda gooyay dawladda qadar waxaana loo baahnaa oo aan isleeyahay in maadaama meesha hadda ay hawsha u socoto ay tahay arrin sii dheeraanaysa waqtigeeda cabdi xaafid maqlisa liban fadlan walaalkay su'aal ka dhig because laba su'aalood baa qabtaa commentary haddaa ka bixisid laba su'aalood weydiisay waqti badan baa lumaya dadka ku daawanaya xaq uma ahan ayagana inay fursad helaan bay rabaan so su'aal ka dhig professorku ku fahmaya insha Allah waa mahadsantahay way su'aasha koowaad waxa ay tahay maadaama masaalix ay tahay waxa siyaasadda la rabo in maslaxad laga fiiriyo maslaxadda long termka ummadda Soomaaliyeed iyadoo aan xag caadifad laga fiirin ma waxa ay ahayd in ay raacdo meesha ay u badan yihiin dadka ama ay u badan yihiin dawladaha xagga Sacuudiga iyo Imaaraadka xagga in la raaco iyadoo aan caadifad iyo gardarro aan la fiirin taas su'aashida koowaad oo ummadda maslaxadeena laga fiiriyo taa midda koowaad weeyaan su'aasha labaad aan rabo professorka inaan weydiiyo waxay tahay haddii dawladda dhexe aysan gaarin
deegaamada soomaaliyeed oo dhan 18 gobol aysan gaari karin, awoodna aysan ulahayn, haddii meelaha hadda wax ka dhisan ay iyaga maslaxadda soomaaliyeed ama masalan arrintii aad ka dhawaajisay dekedaha ku saabsaneed, haddii ay iyada aysan permission siinin oo aysan arrintaas aysan la imaanin, haddii ay maamulada sii sameeyaan ila hanti soomaaliyeed weeyaan oo laga sii faa'iido, maxay dhibaato leedahay arrintaana? waa mahadsantahay liban professor. su-aasha hore waa liban, waa runtii waxa weeyaan in maslaxadda la eego. maslaxadda ayaa dhowr nooc ah. midi waa quudka maanta la cunayo waaye ee laga yaabo inaad ku margatid hadhow toole. 20 sannadood iyo in badan ayay Soomaali joogtay Imaaraadka iyo Sacuudigaba. danta ka weyn dadka halkaa degan waxa weeye dadka qaranka Soomaaliyeed waaye. waxa weeye waxaan ogahay in dawladda Sacuudiga nin sarkaal sare iyo nin sarkaal sare oo Soomaaliya inay ku kulmeen Addis Ababa, shirkii Afrika lagu kulmay oo la yidhi de maxay amurahan sidan hadii yeeli weyday. waxa weeyaan wuxuu yidhi annaku waxa weeyaan itaal hanu cid wax ugu tarno ma jirto, haddaad walaalaha iyo tihiin sidaad sheegaysaan waxa weeye waxaasaan u baahanahay nala qabta, haddaad nala qabataan de waxa weeyaan markaa waynu kasii xoogaysananaa. laakiinse 20 sannadood baan inagu daawananay macaluul iyo abaar iyo colaad iyo waxba la'aan. iminka markaad annaku hanu baahanayna soo booda ayaadna leedihiin, de nama qabatee hanu gorgorano, de yaa kula gorramaya weeyaan, waa xoog, waa lagaa xoog weyn yahay. marka waa runtii oo inta dadkan danta leega waayo, laakiinse dadka danta maanta joogtaa waxaa laga yaabaa danta berri toole inay carqalad ku noqoto. marka labadaba waa in laga fiirsaa. tii ahayd dekedaha in la dhiso, wax allaaliya waxaan ka qabaa in dekedaha la dhiso ma jiro, laakiinse waa jidkii loo marayay ayaan kii saxda ahayn. marka berbera in la dhiso, airportka dekeda berbera in la dhiso, airportka Kismaayo in la dhiso, dekeda Kismaayo in la dhiso, waa xaq weeyaan in la wada dhiso. laakiinse lagu heshiiyo sharci iyo jidkii loo mari lahaa. iminka waxa weeyaan mid walba dawladda Soomaaliya xiriirkaan u goyno Cabdiweli Gaasidi, dekedana waxaan la dhisanaa Imaaraadka. Cabdiweli Gaas tolowma waxaa ka hadlinaya Imaaraadka oo ku yidhi dekedaanu dhisanaa miya. marka waxa weeyaan dekedahaasoo dhan in la dhiso, jidadkii in la dhiso, laakiinse sidii loo wadaagi lahaa, kharashkii ku bixi lahaa, kharashka ka soo baxaya sida dadku u wada yeelan lahaayeen, waxaasoo dhan jidkeegii lama hayo weli walaa. arrintaas Cabdiweli Gaas hal mar waxa laga yaabaa Cabdiweli Gaas lama joogo, marka in aan su'aal halkan keeno waa daruuri. fadlan. waxa laga yaabaa inuu yiraahdo maslaxada dadka reer Puntland baa ku jirta in dekedan la dhiso, dawladda dhexe maaragtay danteeni ma wado. sharciga dastuurka Soomaaliya u yaala muusan ka hor imaanayn markuu saa u hadlo. maada waxa weeyaan cid maanta dastuurka tixgelinaysa dowlad goboleed way yar tahay. markan ka reebo ninka Axmed Madoobe lagu leeyahay, at least intii qowlkayga aniga uu igu yidhi dawladda dhexe waxaa nooga wakiila. de markaa inta la arkayo qowlkiisa iyo ficilkiisa inay kala duwan yihiin waa intaa lagula xisaabtamaa waaye. laakiin waxa weeye in dadka degan gobolada bari ee Puntland imika la baxay inay ka noolaadaan oo ka shaqaystaan dekeda Boosaaso, cid isweydiinaysaa ma jirto. waxa weeyaan Cabdiweli Gaas hadduu ummad Soomaaliyeed ilaa ra'iisul wasaarena wuu sheegan jiray, ummad Soomaaliyeed hadduu u shaqaynayo inuu intuu xamar tago ama uu casuumo iyaka uu ku yidhaaho arrintan baanu doonanaa, nala qabta sidii sharcigu ahaa inakoo wada soconna hanu samayno. hal xalaalayaa leedahay, hal xalaalayo. haddii aan la xalaalaynayn waxa weeye maalin kalena waxaa la odhanayaa Ethiopia haddaad tagtiin goboladeeda oo jijiga tagtiin qabaayil bay ka wada dhisan yihiin, waxba kuma jabna. dee waxaan u sheegay qolooyinka caynkaale anu Ethiopia waan ka soo shaqeeyay, waxna waan ka soo qoray. madaxweyne goboleed oo reer jigjiga ah oo ina dawladda dhexe dhabarka ka taaban in isaga la doorto maba jirtaba. 5 madaxweyne ayaan jeelka jigjiga uga tagay waagan Ethiopia tagi kari jiray. marka waxa weeye dawladda dhexe Ethiopia markay hindhisto goboladeedu TB bay qaadan walaal. Soomaad garan xoogay leedahay, waxay ku dhaqaaqi karaana ma jirto oo ina dawladda dhexe la socon. marka waxa weeyaan haddii la doonayo dekedahan in ummadda looga shaqeeyo ama berbera ha noqoto ama Kismaayo ha noqoto ama Boosaaso ha noqoto, waxa weeyaan inta dawladda dhexe loo tago wixii isku duuban oo jid loo maro leh oo la xalaaleeyay sida sheegtay in la maro weeyaan walaal. marka waxaa leedahay waa inaan madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada kuwa kaleba inay talaal Soomaaliyeysan qaataan
oo soomaalinimo wixii lagu gooyey iyo sharcigeena iyo dastuurkeena qabuul ku mahad celinaya professor khadka telefoonada dan dib mar kale ugu noqono halow may maqashaa walaal soo dhow walaal magaca cabdixakiin maxamed cabdiraxmaan jamaal ligasax maxaa lagu yihahdaa walaal maxamed cabdiraxmaan jamaal maxamed soo dhow maxamed cabdiraxmaan mahadsantaha cabdixafiid professorka sidoo kale silaa umad celinaya nin odayo haldaro waxgarada aqoon-yahana waaye waa mahadsantaha professor marka ugu horeeya talaba haddaan mawduuci u daadego wuxuu yahay ka soomaali ahaan nina wuxuu yihi waxaan ay dul culimo wareeriyay marka soomaaliya markii hore hogaamiye kooxyada ka tilinayay oo kusoo weerarnay wakti dheer ee qaadatay haddana professorradii dadkii aqoon-yahaniintii way soo badatay professor jawaahiri professor gaas oo hadda xaaladiisa hadda lasoo ujeeda haddana professorka ujeednaa oo maanta o dhan wixii qalad waxbay u noqoneen maanta dhan qofka biniaadanka dee wax la sheegay qalad unba la sheegay marka waxbaa qalda marka professorku ma la gudboontahay inuu meeshii tago ama wax ka qabto mase waxaa la gudboon ina wixii wax laga bedelo baartaan ama in laga aamuso intii muddo inta wax iska bedelay waa mahadsantahay professor su-aashaas haddaan su-aal kuu raaciyay maxamed su-aashiisa dalkeenu waa burbursan yahay dagaal iyo dhibaato badan buu soo maray markaan professor maqalno waxaan mararka qaarkood isna idhaahnaa magickiiga ninkaana haya inaad wax walba ka qabataan oo kala furtaan professor fara badan baa jira gaas baa kamid a jawaari baa kamid a kuwo kaloo fara badan baa jira oo hadda aan halkan ku xusanin maxaa idinla gudboon idinka markaa isku tagtaan oo waxaana ka wada hadashaan mise isku tagtaan oo wax ma ka qaban kartaan waxaan shicibka u baahantii horta waxa weeye qofka wadanigii ama wadaniyadii xaq bay u leeyihiin inay ka fikiraan waddankoogu wuxuu ku sugan yahay intii itaalkoogana ay sheegaan waxay ula muuqato xalku wuxuu yahay waa garta haddaad sidaa u hadashid macnaheegu maaha siyaasi baa tahay waa garta soo maad garan qolooyin baa soo wixii odhan doona siyaasiga cabdi samatar war xaggee bahasha ka daaray baan ku idhaha soo maad garan ciyaal baan caruur baan wax u dhigaa ama soomaaliya ha joogaan ama maraykan ha joogaane markaa ha la kala saaro qofka wadaniga ee mas-uuliyad isa saaraya ama isa saarasa iyo qofka siyaasiga noloshiisu hay ku xidhan tahay ama nolosheedu ku xidhan tahay inuu jago qabto aniga noloshaydu kuma xidhnaa inaan wasiir noqdo iyo inaan director noqdo iyo inaan agaasimo noqdo iyo kuma xidhna waa noolan karaa intii ilaahay ka sokaysa markaa taasi waa ta koobaad ta labaadna arrintaa ka dhawaajisay cabdilxaafido walaal ee ah qofkii waxaa laga yaaba professoradu inay muftaaxii dee samaynaya ahayn horta su-aala naga weydiiya halana imtixaamo soomaad garan waxa weeye horta qofka ilaahay hadduu marka hore maskax siiyey markaasuu cilmigu waxu taraa hadduu markii hore dhakaakahad ahaydna dhakaakanimadii ayaa sii weynaanaysa oo b h d bay qaadanaysaa bahashu soomaad garan markaa dadkay u taallaa inay kala saaraan kay bahashu xaggii kale u weynaysay iyo kay wanaaggii u weynaysay halana kala saara ta labaadna waxa weeyaan in lagu xisaabtamo oo qof walba imtixaan la saaro waayo oo la yidhaha cabdilxaafid journalist bu ahaa soo maha taarikhdaada inta lasoo raaco muxuu qabtay siduu wax u qabtay habkiisu muxuu ahaa hanaankiisu muxuu ahaa iimaankiisu muxuu ahaa hawshiisu siday ahayd dadaalkiisu siduu ahaa inta la yidhaaho dictoor la wada sheegto dictooraduna way fara badan yihiin ya qaar runa iyo qaar beenaa ka wada buuxa meesha professoradu way wada fara badan yihiin qof walba halala xisaabtamo aniga ha layga bilaabo haddii la doonayo muxuu ku soo qabtay shaqadan uu sheeganayo hadduu taa wax ka soo saaray markaasaa laga yaabaa wax kale in lagu aamini karo hadduuna taa wax ka soo saarin waxba dadka kale ma duwanin marka waxa weeyaan yaan lanoo qaadan inaanu nahay mafaatiixdii wax furfuri lahaa qof walba sida qofka kale loola xisaabtamayoon ahayn professor aan ahayn in loola xisaabtamo taasi waa tii guud ta gaarka waxa weeye walaal ku dhaabsan dadkan waa horta ninkan macalinkaa ama qofkan macalinka ee professorka lagu sheegay kow iimaan ma leeyahay ama iimaan ma leedahay ya taariikhdiisa islaamnimo siday tahay taariikhdiisa soomaalinimo siday tahay ya ninka soo horseeday in distoor caynkana la keeno ya dee taasaa inagu filan in la dhaho halkaa ha naga fadhiisto xaajigu cidda doonaysaba ha noqoto ka keena in la yidhaaho waxaanu nahay dowladda puntland iyo dadka puntland een odhanayn dadka soomaaliyeed ee puntland ku nool isagana xisaabta ha lagu taago soo maad garan aniga oo iska afdheer oo iska hadhadlaya udheed ha lasoo eego la yidhaha war ina samatar muxuu ku soo qabtay professornimada imise arday buu soo saaray meelahu tagay muxuu ka qabtay edabtiisu siday tahay iimaankiisu siduu yahay qof walba sidaa ha loola xisaabtamo marka ha iskaayo siinin oo ha odhanin hebel waa professor oo wax u wanaajin karaa
ee taariikhda hala gala ta ugu dambaysa su-aashaa ku saabsan waxa weeye su-aal nin kaa horreeyey ay weydiisay ayay ku xidhan tahay laakiinse taa adaan kuu daynayaa oo yidhi waan ku gebagabayn doonaa ahay zakariya tc waxa weeye anigu wax yar baan aqaanaa macallin baan ahay cilmiga juqraafigaan bartay muddo imika 30 sannadood aan wax dhigayay waxoogaa baan qorqoray meelahan tago Soomaaliya arday baan wax ka baraa qaar baan waxoogaa ka bixiya markay iga go'i karto wixii macallinnimo laga filayay hal laygula xisaabtamo jaga siyaasadeed maan qabanay soo ma garan haddii la yidhaaho markaasi cabdow maxaad u soo geli weyday waxa weeyaan horta meeshan gelaya iimaan ma leedahay haddayna iimaan lahaynna rajo iimaaneed ma leedahay hadduu dowladahan ka hadlaya marka waayo haddii aad isku tuurtid oo jirka iyo iimaanka iyo wax oo dhani kaa xayuubmood qaawismatid wax kuu hadhay ma jiro marka meeshaad ku dhacaysid adigoo dadkaaga u tudhaya waa inaad hubsataa marka anigu weli ma arag xasan sheekh iyo faarax cabdulqaadir iyo qolooyin baa yidhi nala shaqee markaan arkay beentoodii waan iska dhaafay rumaan sheegaya anigu waa halkaa la soo fadhiisiyo hanu doodna haddii la doonayo soomaad garan qolooyinkan dood ayaa naga dhaxaysa laakiinse waxa weeyaan waxaan fiirsanayaa waxaan sidee baan wax ugu dari karaa anigoo iimaankayga ilaashanaya anigoon iimaan beelin shaqo ma raadinayo walaal marka waxa weeye waxaan arkay markaa waxa ugu weynaan imika tari karaa waxa weeyaan meelayoga jaamacaduhu ka jiraan ama meelayoga walaaltinimo doodi ka socoto inaan wax ku daro walaal itaalkaygu intaasuu ku koobay waa gartay waxaan rabaa laba su-aal oo jamacna kusoo gabagabayno waqtigan barnaamijka ugu talagal nagu dhaafay marka waxaan rabaa laba su-aalood muhiima inaan kusoo gabagabeeyo adiguna aad maaragtay iisoo koobtay hadii laa yidhaahdo waxaad qortay buug si weyn loo wada sugayo buugga magaciisa iyo waxa kugu kalifay inaad qortay maxay ahayd marka hore walaal buugga waxaa la yidhaahdaa hormoodkii afrika ee amuuraha dimuqraadiga africa's first democrats waana soomaali taariikhdeed lagu dabaqayo noloshii aadan cabdulle cusmaan markuu ahaa madaxda iyo cabdirasaaq xaaji xuseen labadoodaba allah u naxariistay madaxda hay ahaayeen hanaankoogii siday u dhaqmeen edabtoodii islaamnimadoodii wixii ay qabteen siday meeshii wixii aaminaada loogu dhibay aaminaaddii iska soo celiyeen iyagoon cidnaba maanta sheegi karayn inay wax ka dhaceen tilmaan baan ku siinaya maalan cabdirasaaq oo kale markii dowladdii siyaad barre qabsatay ayaa bank accountskii kuwa dowladda ku jiro o dhan baa la qabtay waa la soo baadhay 3 sannadood markuu cabdirasaaq dabadeed jeelkii siyaad barre ka soo baxay ayuu siyaad barre u yeedhay markaasuu yidhi war cabdirasaaq inaad sidan u doqon tahay maba ogeynba markaasuu cabdirasaaq wuu yaabay aniga cabdirasaaq baa ii sheegaya allahu naxariistay markaasuu yidhi baankaagii markaanu eegnay $500 baa ku jiray soomaad gal gurina ma lihid xamar guri kaaga dhisani ma jiro waa ra-iisul wasaarihii dalka soomaad garan de aadan cabdanla hadalkiisaba dhaaf intuu lacagtii dowladda u kaydiyey ayuu guryo dowladda ugu dhis una isagu lahayn kuwii imika waayahan dambana guryay ku wada dhisanayaan dhulkii bay boobayaan taasi waa taas markaa buugga waxaa igu kalifay walaal laba arrimood mid waxa weeyaan mid afrika guud dood ka socota oo madaxda afrika maxay yihiin siday u dhaqmaan su-aalo caynkaasi markaa waxaan arkay in soomaali taariikhdeedu afrika wax kusoo kordhin karto waa kow ta labaadna waxa weeyaan dhallinyarta soomaaliyeed rag iyo dumarba iyo ciddii kale danaynaysa ee jecel inuu waddankoogu haykalkiisii la soo noqdo inuu ay cashara ka bartaan waxay dadku soo mareen oy soomaali kari karto dowlad wanaagsan oo dadkeegu ogol yahay inay samayn karto inay taariikhdaa bartaan ayaa igu kalifaa inuu buugga qoro waa gartay daawadayaal buuggaas iyo macluumaadkiisa Facebook pageka TV-ga Universal ayaanu idiin soo gelin doonaa dhowaan si aad ola socotaan meesha lagu qabanayo goorta la qabanayo iyo buugga macluumaadkiisa haddii ilaahay aday ciwaanka weliba meeshuu ka dhacaysaba ugu dambeyntii allahu mustacaan waxaan jecelahay inaan ku weydiiyey su-aal zakariya uu ku weydiiyey from South Africa ana maskaxdeeda ka guuxaysa dad badan inay isweydiinayaan laga yaabo oo jecel inaan ku weydiiyey waxay tahay laga yaabaa adigu maadaama professor aad tahay Soomaali aad tahay muwaadin aad tahay aad jeceshahay Soomaaliya inay maaragtay horumar gaarto in aad Soomaaliya hoggaankeeda wax ka qabatid oo aqoontaada aad ku biirisid iftiinka baxaya oo aysan dhinacaaga maaragtay la yiraahdo barito carruurta Soomaaliyeed ahaan professorku qaybtiisa waa ka soo baxay qaybteennii weeyaan damac siyaasadeed buu kugu jiraa anada waa in taa had soo xoqanaysiin dhammaantiiba waan inay arkayay
waxa weeye horta siyaasadda ayaa laba nooc ah mid ama siyaasiyiinta laba nooc ah iyo siyaasaddoodaba mid waxa weeyaan iimaan ku dhisan arag ku dhisan edab ku dhisan danta dadka ogolaashaheega ku dhisan marka waxa weeyaan ama adigu cabdilxaafida qabo ama cabdi samatare qabto ama qof kale ha qabtee dadka ayaa arkaya qofka dantoodii ka soo bixi kara isagoo edabtana ilaalinaya midna waxa weeyaan intuu durmaanka laabta tunto uu doonayo inuu isagu wax noqdo qolooyin ayaa la ii sheegayay odhan jiray waxaan doonayaa inaan soomaaliya wax ka noqdo ee aan odhan jirin inay soomaaliya wax noqoto ayaan rabnaa markaa meeshani cid quroo badbaadin kartaa ma jirto ya cid ilaahay soo diray wax ka sokeeyo badbaadin kartaa ma jiro markaa waxa weeyaan aniguna waxba ma qaban karo adna wax ma qaban kartid dad isku mabda'ahi intay is urursadaan tiim ahaan ku tagaan meesha iminka maalan dadkan meesha jooga tiim ahaan kumay tageen kuwii ka horreeyey tiim ahaan kumay tarin ta keenaysa inay wasaaraduhu noqdaan 70 iyo 50 iyo wax la mid ah waa ha la soo jaabeeyo reeraha la isu keena waaye barnaamij hagayaa ma jiro markaa waxaan qabaa haddii la dhisayo tiim edeb iyo iimaan iyo islaamnimo iyo soomaalinimo iyo karti iyo dan ummadeed ku dhisan oo la yidhaaha cabdow tiimkaa ka mid noqo wax allaaliya waxaan ka qabaa ma jirto laakiinse cabdi samatar baan ahayoo madaxweynaan doonayaa inaan noqdo ama ra-iisul wasaaraan doonayaa inaan noqdo si aan soomaaliya wax uga noqdo anigu waxaan rabaa soomaaliya inay wax noqoto walaal aad iyo aad baan professor kugu mahad celinayaa ka qayb qaadashada barnaamijkan waxaan jeclahay in intaan kusoo gabagabeeyo aad baan kugu mahad celinayaa allah ku karaameeyo dhammaanteen bula shukran jaziilan waa hagaag daawadayaal waxaan jeclahay inaan intaan kusoo gabagabayno barnaamijkii laakiin waxaan rabaa ogeysiis yara haddii ilaah yidhaahdo in aan ka hormariyo oo hadda la ii dhiibay buugga professorka uu soo bandhigayo bandhiga buugga professorka uu qoro ka sheekeeyey jaamacadda Swiss ayaa lagu qabanayaa berrito oo jamco ah haddii ilaahay yidhaahdo marka laba ciidood weeye berrito waa ciidda weyn iyo fiidkii oo professorka Selisan 5:00 ilaa 7:00 haddii ilaahay yidhaahdo ayaa lagu qabanayaa hawdayma la-aanina insha allahu tacaala waa hagaag taas weeyaan waxaan jeclahay inuu mahad celiyo dhowr qof oo muhiim ah Dr. Idil Cusmaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa oo qeyb weyn barnaamijkan ka ahayd inuu maaragtay uu caawa suurtagal ilaahay ka sokoo sidoo kale soo saaraha barnaamijka ayaan u mahad celinayaa Cabdulla Mudhir Cabdixakiim Fiqi ayaa stuudiyaha nala joogay waxaa kaloo nala joogto weliba gabar yar oo professorka oo dhalay oo iyadoo halkan joogta oo xishoonaysa inay noo soo gasho ayadana waxaan u rajeynaynaa guul iyo gobonnimo anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac idin la socodsiin